Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada wararka ciyaaraha Bulsha Sports TV qodobada idinkaga hay waxaa kamid ah Man City ayaa u dhaqaaqi karta saxiixa Cristiano Ronaldo Doku ayaa dalabyo ka helaya Arsenal iyo Liverpool Rennes ayaa iibinaysa xidigooda Camavinga Liverpool ayaa dalab cajiib ah ka gudbisay Saul Man City ayaa ku biirtay dalabka lagu doonayo Chiesa intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka ciyaaraha tan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Man City ayaa u dhaqaaqi karta saxiixa Cristiano Ronaldo faahfaahinta warkan waxa inoo hay Maxamed Ibrahim Bibaye kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xilligan isku diyaarinaysa inay helaan booska uu ka faaruqay xidigoodii hore ee Sergio Kun Aguero oo dhawaan ku biiray kooxda kubadda cagta Barcelona waxaan waqtiga kan xaadirka muddo dheerba ay ku rajoogtay kooxda Manchester City qaabkay ay ula soo wareegi lahaayeen xidiga kooxda kubadda cagta Tottenham ee Harry Kane isku day walba ay sameysay kooxda kubadda cagta Manchester City waa ay u suurtagali weysay balse hadalhaynta ugu waaweyn ayaa ah in Manchester City ay dunida oo idil ay ka naxin karto kadib markii la sheegay inay u dhaqaaqi karaan xidiga kooxda kubadda cagta ee Juventus ee Cristiano Ronaldo لاعبكان كريستيانو رونالدو ayaa tan iyo xilligu ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus ee horyaalka dalka Talyaaniga si weyn ayuu u soo jiitay qaab ciyaareedkiisa laakiin waxa muuqanaysa in xiddigu uusan ku qanacsaneyn inuu ku sii sugnaado Turin Cristiano Ronaldo waa 36 sano jir xilligan waxaana uu doonayaa guud ahaanba inuu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Juventus maadaama uu ku jiro 12 bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa Manchester City waxa ay doonaysaa inay xoojiso dalabkaasi waxaana hadda ay diyaar u yihiin isbedel la yaab leh in ay sameeyaan haddii ay ku guuldareysaan damacoodii ku aadanaa Harry Kane Cristiano Ronaldo ayay markaa u arkaan dooq ugu muhiimsan Juventus ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay doonaysaa inay arintaasi kala xaajoto halka Manchester City ay dhankeeda xusayso dalabka ku aadan ciyaaryahankaasi in ay u adeegsan doonaan xidigo macquul ah laakiin Manchester City ujeedka ugu weyn ayaa ah in Gabriel Jesus iyo lacaga markaa ay israaciso si ay u helaan xidiga 36 jirka ee kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo sida ay daawacday jirada Calcio Mercato ee dalkaasi Talyaaniga Doku ayaa dalabyo ka helaya Arsenal iyo Liverpool kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ee Arsenal iyo Liverpool ayaa ku tartami doona saxiixa Jeremy Doku kadib markii uu laacibkan wacdaro ka dhigay xulkiisa Belgium intii uu socday tartankii qaramada Yurub Doku ayaa horey u booqday xarunta tababarka ee Liverpool sanadkii 2018 waxa uu u muuqday inuu u dhaqaaqista kooxda Arsenal ayaa caawinaad ka heli karta Thierry Henry oo ah kaaliyaha tababaraha xulka Belgiumka Jeremy Doku oo asal ahaanba ka soo jeeda dalka Ghana ayaa shakhsiyan aad u doonayay inuu ku biiro kooxda Arsenal xilli ciyaareedka maadaama uu sidoo kale dalabyo ka helay Chelsea iyo Liverpool Rennes ayaa iibinaysa xidigooda Camavinga faahfaahinta warkan waxa inoo hay Maxamed Ibrahim Bibaye لاعبka ka tirsan kooxda kubadda cagta Rennes ee horyaalka Ligue 1 dalka Faransiiska Eduardo Camavinga ayaa diyaar u ah guud ahaanba inuu isaga dhaqaaqo waqtiga kan xaadirka maadaama maamulka kooxdaasiba ay ku dhawaaqeen inay iibin karaan xil ciyaareedkan laacibkaasi madaxa kooxda kubadda cagta Rennes ee Nicolas Halbeck ayaa markaa xusaya in ciiraankani ay haystaan dalabyo aad u fara badan maadaama toddobaadkii ugu dambeeyaba aad loola xiriirinayay sida kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska dhawaanahanba waxaa soconaya hadalhaynta daayarkan ka tirsan kooxda kubadda cagta Rennes Eduardo Camavinga waxaa sidoo kale lala xiriirinaya kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Paris Saint-Germain tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaana markaa doonaya in kooxdiisa laacibkani uu ku xoojiyo maadaama shakhsiyan daayarkan Eduardo Camavinga uu aad u xiisaanayay inuu ka soo dhex muuqdo horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League Camavinga ayaa qandaraaskii uu kula joogo kooxda kubadda cagta Rennes ayaa lagu tilmaamayaa inuusan ku qanacsaneyn walow laacibka la xusayo in muhiimadiisuba ay tahay inuu ka dhaqaaqo horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska waxaana la doonayaaba in hadda loo gacan geliyo kooxaha dhaqaalaha faraha badan ku baadi goobaya daayarkani Eduardo Camavinga Liverpool ayaa dalab cajiib ah ka gudbisay Saul
kooxda Liverpool ayaa dalab daahfuran ah u dirtay xidiga kooxda Athletic Madrid ee Saul Niguez iyadoo maamulaha Liverpool ee Jurgen Klopp uu doonayo inuu sii xoojiyo kooxdiisa ka hor inta uusan furmin xilli ciyaareedka cusub waxaana laga yaabaa in ay heshiiska qayb ka noqdaan xidigaha kale Shaqiri ama Henderson. Saul ayaa ka mid ah xidigaha qadka dhexe ee ugu fiican sanadihii la soo dhaafay laakiin wuxuu ku dhibtooday qaab ciyaareedkiisii xilli ciyaareedkii 2020 ilaa 2021 inkastoo Atletico ay ku guuleysatay tartanka liiga. Laacibka Saul ayaa dhanka kale ku lug lahaan kara heshiis isdhaafsi ah oo ay damacsan tahay kooxda Barcelona si ay u lumiyaan Antoine Griezmann laakiin taasi waxay hadda u muuqataa mid fashil ku soo dhamaan rabta. Liverpool ayaa markii ugu horeysay sameysay dalab dhan 40 milyan oo euro iyo mid ka mid ah Shaqiri iyo Henderson inay bixiyaan. Man City ayaa ku biirtay tartanka lagu doonayo Chiesa. Faafahintan warkan waxaa inoo ah Xasan Cumar Xuseen. kooxda haysata Premier League ayaa cadaysa dalabka xidigan inay hirgelin doonaan xagaagan. Manchester City ayaa ku biirtay loolanka saxiixa xidiga Juventus ee Federico Chiesa sida laga soo xigtay Calcio Mercato. Kooxaha kale Chelsea iyo Bayern Munich ayaa si aad loola xiriirinaya inay 23 jirkan gacanta ku soo dhigi doonaan laacibkan oo door muhiim ah ka qaatay tartanka Euro 2020 oo ku guuleystay xulkiisa qaranka ee Talyaaniga xagaagan. Federico Chiesa ayaa hal sano uga hartay qandaraaskiisa kooxdiisa Juventus laakiin lama qorsheynayo in la iibiyo xilli ciyaareedkan. Sterling ayaa ka mid ah xidigaha Tottenham loo soo bandhigay. Raheem Sterling waa mid ka mid ah xidigaha musharaxiinta ee loo soo bandhigi karo Tottenham isagoo qayb ka ah heshiiska loogu doonayo Harry Kane. Harry Kane ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxdiisa Tottenham xagaagan waxaana u badan tahay inuu ku biiro kooxda uu aadka u xiiseynayo ee Manchester City balse heshiiska Harry Kane uu kula joogo kooxdiisa waxay kaga egtahay 30 Juun 2024 laakiin kooxda Manchester City waxaa laga doonayaa in ay ku bixiso lacag aad u badan saxiixa Harry Kane. Tottenham ayaa horey u diiday dalab ku dhow 115 milyan laakiin Pep Guardiola ayaa rajeynaya in kooxda Tottenham u gacan geliyaan Raheem Sterling iyo lacag kaash ah xilli ciyaareedkan haddii ay suurtagal noqoto. Xidigaha loo soo bandhigay kooxda Tottenham si ay heshiiskan kaga qayb noqdaan waxaa ka mid ah Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez iyo Gabriel Jesus. Juventus ayaa diyaar u ah qandaraas cusub siiso Giorgio Chiellini. maamulaha kooxda Juventus ayaa diyaar u ah Giorgio Chiellini inay sii haystaan maadaama uu yahay xidig khibrad badan sida ay qortay Calcio Mercato. 36 jirkan ayaa xilligan xidig hor ah kadib markii uu soo gaabtay heshiiskiisii u dambeeyay ee kooxda laakiin Juventus ayaa qarka u saaran inay u soo bandhigto qandaraaska cusub ee halka sano ah. Giorgio Chiellini ayaa laga doonayaa inuu sameeyo mushaar dhimis si uu sii joogo kooxdiisa Juventus balse labada dhinac ayaa ku kalsoon inay heshiis gaaraan maalmaha soo socda. intaasi waxaa ku soo gabagabeynayna wararkani ciyaaraha waa anigoo ah Qamar Maxamed Cumar sidaas nabadgelyo.